soo dhawaada saaxiibayaal waa barnaamijkeenii baadigoobka shimbiraha ku dhaqan Soomaaliya. Maanta waxaan ka hadli doonaa labada qaybood ee loo kala yaqaano Pelicanis iyo Grebes. Pelicanisku waa shimbiro biyood waaweyn oo caan ku ah fuq dheer oo gaar u ah iyo kiish cunaha ah. Waa dabaalyaqaan aad u fiican iyo quusayaal. Waxay ugu horreyn quutaan kalluunka iyagoo isticmaalaya kiishka cunaha si ay ugala soo baxaan biyaha kalluunka ay qabsanayaan. Waxaa laga heli karaa Pelicaniska meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin harooyinka biyaha saafiga ah, webiyada iyo xeebaha. Soomaaliya waxaa jooga laba nooc oo pelican ah. Ka koowaad waxaa la yidhahdaa The Great White Pelican, Pelicanus onocrotalus. Waa shimbir haybad leh oo leh baalal boodh cad ah iyo kiish weyn oo cunaha ah oo ay ballaarin karto marka ay doonto. Shimbiraha Pelicaniska waxay u dhasheen qaybo ka mid ah Afrika, Yurub iyo Aasiya. Waxay inta badan isugu yimaadaan deegaanada u dhow harooyinka biyaha macaan, webiyada iyo xeebaha. Cuntadooda ugu horreyn waxay ka kooban tahay kalluunka iyo xasharaadka badda, xayawaanka badda ku jira, kaas oo ay ku soo qabtaan iyagoo fuqooda dhuuban biyaha dhex gelinaya oo ku qabsanaya ugaadha. Waxaa xiisa leh inta lagu jiro xilliga taranka ama qooqa, baalashoodu waxay isu doorin karaan midab casaan ah sababta oo ah cuntada ay quutaan. Dadaalka iyo ilaalinta ayaa muhiim u ah si loo ilaaliyo shimbirahan quruxda badan iyo meelaha ay ku nool yihiin. Haddaba, sida uu tilmaamayo buugga shimbiraha bariga Afrika, Soomaaliya waxaa mugdi ku jira in laga helo The Great White Pelican oo lagu tuhunsan yahay in uu sii joogo Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe. Dadka ku dhaqan labada gobol ha sheegaan magaca ay u yaqaaniin. Nooca labaad waa Pink-backed Pelicans, Pelicanus rufescens. Waa shimbir ka mid ah qoyska pelican, laga helo dhooqada iyo harooyinka gunta dhow ee Afrika iyo Koonfurta Carabta. Nasiib darrose way ka dabar go'day Madagascar. Dhererka shimbirtani markuu ay yar tahay wuxuu tilmaamaa 125 ilaa 150 sentimitir, 49 ilaa 61 inch oo dherer ah, oo leh baalal 2.15 2.9 mitir, 7.1 9.5 fuut iyo cuf jidheed 4 ilaa 7 kiiloogaraam, 8.8 ilaa 15.4 lb. Baalashoodu inta badan waa cawl iyo caddaan, marmarna dhabarka ka muujinaya midab casaan ah, inkastoo aanay u muuqan sida casaanka nooca shimbiraha flamingo. Marka ay qooqan yihiin waxay ku dheeraan baalal dhaadheer oo madaxooda ay dul mariyaan. Pink-backed Pelicans waxay door bidaan meelaha dhabarka biyaha deggan ku leh ee gunta dhow, iyaga oo iska ilaaliya harooyinka iyo biyo fadhiisinada dhirta leh. Waxay deegaamaysi ay ku noolaadaan ka samaystaan geedaha cawska ama kaymaha hoose ee hareeraha biyaha ku yaalla. Buulashooda iyo meelaha ay degaan waxaa laga helaa baalal tuulan 10 ilaa 50 mitir dhulka ka sarreeya. Dhaddigu waxay dhigaan 2 ilaa 3 ukun oo cadcad oo waaweyn. Marka ay dilaacaan, dhasha yaryarina waxaa quudiya hooyooyinka oo kiishka afkooda ku soo qaada ugaadha dhallaanku dheefsanayo. Isna Pink-backed Pelican waxaa laga helaa xeebta badda cas, laga soo bilaabo Jabuuti ilaa Raas Casayr, sidaa oo kale Shabeellaha Dhexe, gobolka Banaadir, Shabeellaha Hoose, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose, gobollada Gedo, Baay iyo Bakool. Ciddii taqaan magacooda Soomaaliga ah ha noo soo sheegaan. Grebes waxay ka tirsan yihiin qoyska Podicipedea, waxayna aad u yaqaaniin ugaarsiga biyaha hoostooda. Waxay ku caan yihiin oo aad u yaqaaniin dabaasha iyo quusitaanka. Grebes waa shimbiro biyood laga helo qaaradaha oo dhan marka laga reebo Antarctica. Shimbirahani waxay jireen ilaa 7 milyan oo sano. Qaar ka mid ah noocyada Grebe ee caadiga ah waxaa ka mid ah Western Grebe, Clark's Grebe iyo Pedia-bearded Grebe. Soomaaliya 2 nooc oo Pelican ayaa jira sidaan hore usoo xusnay.
little grape Teichephantus ruficilius oo sidoo kale loo yaqaano dabchix waxaa lagu arkaa xeebta badda cas laga soo bilaabo Jabuuti ilaa Bandarbayla sidaa oo kale Hiiraan shabeellooyinka Banaadir Jubbooyinka the little grape waa nooca ugu yar qoyska grape ee laga helo Yurub cabirkoodu waxaa 23 ilaa 29 sentimitir 9 ilaa 11.5 inch oo dherer ah inta lagu jiro xilliga taranka qaangaarkoodu waa mid aan la garan karin oo waxay u badan yihiin in ay yeeshaan bulbul madow oo madaxa ah qoortana midab furan dhabannada garbaha iyo baalasha midab huruud dhalaalaya ah qaybaha aan taranka lahayn iyo kuwa da'da yar midabkoodu wuxuu isu rogaa cawl bunni hurdi ah dhalintu waxay leeyihiin fuq huruud ah oo leh caarad madow oo yar iyo xariijimo madow iyo caddaan ah oo dhabannada iyo qoorta ah fuqa jaallaha wuxuu madoobaadaa marka ay da'doodu korto aakhirkana wuxuu isu beddelaa madow da'da qaangaadhka xilliga jiilaalka baalkooda burtuqaaliga ahi dhabarka madow iyo dhoorka iyo dhilifka dambe ee dabada ayaa ka dhigaya iyaga in si fudud loo aqoonsan karo dhawaaqa midka qooqan ayaa u eg mid talantaali loo yiri wiit 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 ama wii 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 oo u eg faras xarraan ah shimbirahani waxay ku dhalaan deegaanada dhirta badan leh ee harooyinka biyaha macaan ee Yurub Aasiya New Guinea iyo inta badan Afrika inta lagu jiro xilliga jiilaalka waxay inta badan u guuraan meelo bannaan ah ama xeebaha ah laakiinse waxay u guuraan oo jecel yihiin gobollada ay biyuhu qabowga yihiin xilliga taranka ka baxsan waxay ku dhiiradaan inay galaan biyo badan oo furan mararka qaarkood waxay ka soo muuqdaan gacmada yaryar ee xeebta Soomaaliya waxaa laga helaa badda cas ilaa iyo Bandarbayla xeebta dheer oo badda cas waa laga helaa dhammaanteed dhanka kale waxaa laga helaa shabeellooyinka Banaadir Hiiraan Jubbooyinka intaana waa laga arkaa marka waxaan ka codsanaynaa dadka yaqaana markay sawirkiisa arkaan magaciisa inay noo soo sheegaan waad mahadsantihiin saaxiibayaal waa inoo iyo talaadada dambe haddii ilaha idmo